السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لها شرفت بدن فرحتي عافية قب أن يدين رجينا نكن وحليها يوحنا هين وينان كوينادين أما ندوني ما كوينادين وأن ولي قرسا وحن لكن دون يا إمي كينا قرسدو أدون كنا وأدون عصريا ووحان meelo badan ka dhageystay inay jiraan dumarku inay xilligan dambe ay u baahan yihiin nin wax ka fahansan nolosha cusub marka waxaan doonayaa waxay aqoon darri baahsan iga haysataa buu yiri meelaha dumarka dareenka ay ka qaataan maadaama oori xalaala aan guri la galayo oo ay muhiim tahay inaan ogaado meelaha dareenkeedu ka kacayo ama meelaha markaas aan ka weerari karo si markaan u gudano raaxada gogosha aad buu mahadsan yahay jawaabtiisa haddaynu si toos ah u guda galno dumarku meelaha dareenka ay ka qaataan region ahaan ama section ahaan ama parties ahaan way yara kala bedelan yihiin goobaha ama area-da jirka way ku kala bedelan yihiin laakiin hal meel baa common oo caana waliba khaasatan marka culimada caafimaadku ay analyse-gareynayaan meesha ugu xasaasisan ee aadka la iskugu waafaqsan yahay waa maqaarka waa skinka waa dubka sare ee jirka maqaarka waxa ku yaala farhiinsidayaal ama dhambaanwadayaal maskaxda ku xidhan haddii ninka gacantiisu ay haweeneyda jirkeeda meel kastaba ka taabatay haddii ay taabato haweeneyda dareenkeedu inuu isbedelayo ayay sida caadiga ah ee commonka ay u badantay si laakiin waxay ku xidhnaanaysaa haweeneydu marka hore ninka waxa ay ka aaminsan tahay booska uu ugu jiro ninku ma ninkeediiba ma nin kala oo ka ajaanabi ah maxay tahay markaynu ka hadlayna arrinta gogosha lamaanaha maqaarka ugu muhiimsan yacni jirkaaga ama gacantaada meel kasto haweeneyda aad kaga saraaxdo ama aad ka taabsiiso dareen way ka qaadanaysaa si laakiin inta hoos baa looga daadagaa oo culimada caafimaadku meelaha kale muhiimka ah ay tilmaamaan waxa kamida in faruuryaha hore xubinka taranku uu yahay meesha xasaasiga faruuryaha ka hooseeya ayaguna muhiim yihiin xubinka dumarka laga jaro dumarkeena isaguna dareenka ay ka qaataan xubin kale ka sii hooseeyana uu yahay mid kale dareenka ay ka sii qaataan goobtaasi waa goobta qaybta cawrada. Wassalaamu calaykum.